grammar ayaan ku barnaynaa qaybtan. Waa qaybta ugu muhiimsan, waa qaybta ugu adag. Waxaynu weli ku jirnaa sida loo isticmaalo it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman Official Channel. waa qaybteennii grammarka ahayd, waa qaybteennii naxwaha ee ugu muhiimsan barashada luuqadda sidan hore u sheegay. Waxaynu weli ku jirnaa isticmaalka it qeybaheeda kala duwan, annagoo kasoo baranay a b c oo haddana ka bilaabi doono d. It is used waxaa la adeegsadaa ama la isticmaalaa to introduce inaynu ku barno a close jumlad gaaban. Example is tusaalooyin. It's strange waa mid cajiib ah ama la yaab leh that he has failed again inuu mar kale guuldaraystay. It is strange waa mid cajiib ah ama la yaab leh that he has failed again inuu mar kale guuldaraystay. It's good way wanaagsan tahay ama fiican tahay that he has come back inuu soo laabtay. It's good way fiican tahay that he has come back inuu soo laabtay. It's hoped waxaa la filayaa ama la rajeynayaa that George will become inuu George noqon doono a doctor. It's hoped waa la filayaa that George will become inuu George noqon doono a doctor doctor. It's not known lama ogo ama lama garanayo why sababta he suddenly left his job sababtuu isla markiiba shaqadiisa kaga tegay. It's not known lama ogo ama lama garanayo why sababta he suddenly left his job sababtuu isla markiiba shaqadiisa uga tegay. It's believed waxaa la rumaysan yahay that women in haweenka ama dumarka live ay noolaadaan longer in ka dheer than men ragga intay nool yihiin. It's believed waxaa la rumaysan yahay that women in dumarka ama haweenka live longer ay in muddo ka dheer noolaadaan than men ragga. Suurtagal ilama ah. It's supposed waxaa la filayaa that the strike will be over soon in uu dibadbaxa ama mudaharaadka si dhaqsi leh uu ku dhammaan doono. It's supposed waxaa la filayay that the strike in mudaharaadka will be over soon uu si dhaqsi leh ku dhammaan doono. It is reported waxaa la soo tabiyey ama la warinayaa that an enemy airplane diyaarad cadow has crashed ay ku burburtay in the hills buuraha. It's reported waxaa la tabinayaa that an enemy airplane diyaarad cadow has crashed in the hills ay ku burburtay buuraha. It's rumored waxaa hadalla kutirkuteena oo jiro ama la sheegaya hadalla suuqeed that the army in ciidankii has crossed ay soo gooyeen the frontier furunta hore. It's rumored waxaa hadalla kutirkuteena lagu sheegayaa that the army in ciidanku has crossed uu soo gooyey the frontier furunta hore. It's well known waa mid caan ah that there is in ay ka jiraan a lot of corruption musuqmaasuq badan in the department waaxda. It's well known waa mid caan ah oo la wada ogyahay that there is inuu ka jiro a lot of corruption musuqmaasuq badan in the department waaxda. waxaa lagu soo qaataa dan anagoo weli isticmaalayno it is a meaningless subject waa maado aanan macno sameyneyn for impersonal verbs ficilada aanan shakhsiga ahayn. It seems waxay u muuqataa ama u eg tahay he's mad inuu waalan yahay. waa wax meaningless ah, lama ogo qofka inuu waalan yahay inuu fiyow yahay. It's a meaningless subject for impersonal verbs baa la yidhahdaa.
it seems ayaa ka mid ah waxay u eg tahay ama u muuqataa waa mala-awaal he is mad inuu waalan yahay. It appears waxay ka muuqataa that George has missed his train inuu seegay ama waayay trainkiisii. It appears way muuqataa that George has missed uu seegay ama waayay his trainkiisa. It happened waxaa dhacday that we stayed inaynu joognay at the same hotel isku hotel inaan joognay. It happened waxaa dhacday that we stayed at inaynu joognay the same hotel isku hotel. It is used waxaa loo isticmaalaa qaybta F to emphasize inaynu ku ta'kiidino part of a sentence qayb ka mida jumlada. You spoiled the show waxaad qarribtay waxaad xumaysay bandhigii ama showgii. You spoiled the show. In the second sentence jumlada labaad it puts emphasis on you. It was you waa adiga ama adigu ahaa who spoiled the show midka haleeyay ama qarribay showga. You spoiled the show waxaad xumaysay ama aad qarribtay showgii. It was you adiga ayuu ahaa who spoiled midka haleeyay ama qarribay the showga. In the second sentence jumlada labaad it puts emphasis waxay it saaraysaa ta'kiid ama carab saarid on you adiga. Other examples tusaalooyin kale. It is fish he likes most waa kalluun waxa uu aadka u jecel yahay. It's fish he likes most waa kalluunka waxa uu aadka u jecel yahay. It was here halkan ayay ahayd that I met her aan kula kulmay ayada. It was here that I met her halkan bay ahayd meeshaan kula kulmay. It's money waa lacag that I want midda anigu aan doonayo ama aan rabo and not empty promises ballamo faaruq oo beenaha eber ah ma rabo. It is money that I want waa lacag waxa aan rabo and not empty promises ballamo eber ah ma doonayo ama ma rabo. Thanks.